نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت هاي تاريخ هاي تضبية لباتنكي بيجي تضباط لبكون لباتنية صدح وحافظ نقصوا باقدي ميجا ورد حياة دولة حي ريح قالول تيم كي كسعودي هدف حق فرورس كها مري دجامة قبل كسناك تيم كأولا وصور وينيا waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan waxaan leeyahay gurigiini iyo ehelkiina waa u timaadeen mar labaad iyagana waxaan u soo jeedinayaa horta safarkooda uga mahad celinayaa waxaan kaloo leeyahay maanta meeshan joogno waa miyi interviewga iyo wareysiga waxaad ka qaadayseen dhulka magaalooyinka waxaan rabnaa inaad ku dartaan warbixinta iyo xogaha aad qaadaysaan horumarinta reer miyiga waayo maadaama nahay dad Soomaaliyeed waxaynu wada ognahay bulshadeena Soomaaliyeed in dhaqankaynu ka soo jeednay ama laf dhabarta nolosheena ay ku tiirsan tahay dhaqanka miyiga iyo xoolaha nool waxa ku jira dhaqankii iyo mataqaanaynu ka soo gaarnay jiilba jiil ka soo dhaxlay marka insha Allah waxaan leeyahay waxaad ku dartaan ama dhalinyarada ku wacyi gelisaan qaybtii dhaqanka waxaan rabnaa kulay inaan rabo diyaariyo hadii Allah uu dalo ogolaado meelo lagu kaydiyo waxyaalihii dhaqanka ahaa sida suugaantii agabkii Soomaalidu adeegsan jirtay hees xoolaadii ay dhalinyarada wax badan ay ka heli karo aan madxaf sameeyo insha Allah waana ii bilaaban yahay insha Allah inaan dhameystiro oo isagoo dhameystiran dhalinyarada soo booqdaan baan rajaynaya marka waxa leeyahay taa ku darsada ha lagu darsado yana aqoomaha inuu dhiganayno qaybtii fintarnaarka ama xanaanada xoolaha si aanu u dabar go'in dhaqankeena soo jiraaga ahaa insha Allah intaasaan ku darsan lahaa mataqaana dhalinyarada safarkeeda inay ku darsadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taageer barnaamijyada iyo waxqabadyada xarunta hadaf kalena xiriir lambarada hoos ku qoran